arrimaha ka soo baxay shirkaas waxaa ka mid ah oo tolku isla qaatay in shareecada islaamka ay u tahay saldhig wax alla wixii ay go'aansanayaan una hoggaansamayaan ayay go'aansadeen reer waxaa ka mid ah in la xoojiyo nabadda gobolka gaar ahaan puntland in nabadeeda iyo midnimadeeda iyo muxuu ahaa xasiloonideeda in la xoojiyo oo sidii ay ku xoogsan lahay laga qayb galo waxaa ka mid ah in la abuuro ilo dhaqaale maalgashina dalka lagu sameeyo si halkaas dadku ay uga helaan shaqo iyo nolol waxaa ka mid ah in midnimada Cumar Maxamuud reerka la yiraahdo ay tahay muqaddas ayadoo aan cid kale waxba loogu dhigin waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha hawsha soo qaadiyay caawin isugu yimid meesha dumarka iyo dadaalada iyo odayaasheeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intaa waxaan ku darayaa isinka la doortay Sheekh Bashiir waan u ducaynayaa waana salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi Bashiir baan leeyahay ilaahay ha u qadariyo meesha lagu geeyey annaguna waa ku hambalyeynayna waan la soconnay waayada shirka ay beesha reer Safaaraha oo walaalahan ay ku lahayd Caadweyn waan rajaynaynaa in wax khayr ah ay ka soo baxayaan Bashiir Cabdulla Cusmaan ama Cabdulla Caadweyn aad baan u soo dhawaynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waan u ducaynaynaa horumarna gaarsiiya dhammaantayo waana u hambalyeeynaya fiqiga ay doorteen beesha reer Safaaraha ilaahana waxaan uga baryaynaa rabbi inuu waafajiyo sida wadada xaqa ah diinta islaamkana uu noqdo mid ku haga inta beesha ah iyo inta kale ee deeska la intaba runtii si fiican u qurux badan oo wax badan soo kordhinaya ayuu leeyahay fiqigu waxaan aad u rajaynayaa fiqigii diintuna inuu la socdo waxaan u malaynayaa beesha reer waxaan iska shabahnaa laba meelood magaca fiqiga iyo inay ku doorteen fiqigooda Bacadweyn inaguna aan ku dooranay Bacadweyn waxaan soo dhaweynayaa fiqiga mar labaad aad baan ugu faraxsanahay waxaan insha Allah taala mar labaad bogaadinayaa oo u mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay insha Allah waxaan leeyahay arinta ka dhacday meesha Bacadweyn ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa fiqi Bashiir Cabdulla Cusmaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq waafajiyo in ilaahay xaq waafajiyo in ilaahay uu barakeeyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sameeyo bidaana xasana dad la taliyaal ah oo wanaagsan ninka hogaamiyaha hadii uusan helin la taliyaal wanaagsan oo uu qarimaya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu xaq waafajiyo la taliyaal wanaagsan oo helo ninkaani fiqiga intii laga sheegay raggii hore aniga igu horreeyay baa gameeyay waxba uga laaban weeyo magaca fiqiga la yidhaahdana Xirsi Faarax baa la dhihi jiray oo halkaas ka soo jeeda annagana kuwii aata oo la shaqeeya Allah naga dhigo amiin amiin Bashiir Cabdulla Cusmaan iyo ismada oo dhan dhalinyarada iyo aqoon-yahanada dadka u howlanaa intaas oo dhan shirkaas inuu dhaco waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay hambalyaanu leenahay waxaan ilaahay idinka baryaynaa inaad noqotaan kuwii hogaankooda uu wanaagsanaado waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaynaa fiqi Cusmaan Bashiir Cabdulla waxaanu leenahay fiqi noqo kii dalkiisa iyo diintiisa anfaca kii ummadda Soomaaliyeed